ciidanka dowladda iyo al-shabaab maxaa ka dhaxeeya? qaraxyo dhowr ah ayaa muqdisho ka dhacay. haddaba goobaha ay ka dhaceen wadooyinka soo gala waxaa jooga ciidanka dowladda. tusaale, khamiis 8 habeenimo xilliga muqdisho, gaari u waday naftiyahalliga ayaa isku qarxiyay baabka Hotel Bosch oo ka soo horjeeda maqaayadda Pizza House. dib haddaan saacadda wax yar u celino, maqaayadaha la weeraray waxa ay ku yaalaan degmada Hodan, isgoysyada Banaadir iyo Soobe waxaa ku yaala bara ciidanka Fariistaan. haddii gaariga qaraxa geystay soo maray dhankan, waxa uu la kulmi lahaa ciidanka baarista. wadooyin kale oo dhowr ah oo ku dhow goobta la weeraray ayay joogaan ciidanka, sidaas oo ay tahay ma aysan qaban. qaraxa kadib, maleeshiyo hubaysan ayaa gudaha u galay maqaayadda Pizza House. ciidanka gurmadka kuma aysan imaan degdeg, waxaana kuwa ugu sokeeyay ay joogeen meel u jirta 5 daqiiqo halka qaraxu ka dhacay. caddayn, maleeshiyada weerarka geystay ayaa wacay taliyahooda iyagoo sugaya in ciidanka dowladda yimaadaan. meesha anaga la wareegin xadirtan waxaan kaaga hadlaa waa dalqa qaran saarada xadirtan wax gurmada uma jeedo, laakiin waxa waaye ma aqaan kulay hadda kadib waxa dhici doono. aanu soo laabano qaraxii shalay ka dhacay degmada Wadajir. gaari caasi ah oo sida qudaar ayaa isku qarxiyay xarunta degmada. ka hor qaraxa intuusan dhicin, gaariga waxaa istaajiyay askari ka tirsan ciidanka deegaanka Xamar oo ka rabay canshuur, maadaama uu gaariga rarnaa. sida ay sheegeen ciidan kale oo goobta ku sugnaa, waxaa lagu qasbay inuu ku leexdo xarunta degmada Wadajir oo lagu canshuuro gaadiidka. muddo bil ah magaalada waxaa ka socda howlgallo. ciidanka dowladda waxa ay joogaan dhammaan wadooyinka. waxaa la xiray jidadka yaryar ee soo gala wadooyinka waaweyn. haddaba ma dhici kartaa inay jiraan wada shaqayn ka dhaxaysa qaar ka tirsan nabad sugidda iyo al-shabaab? Sakariye Ismaaciil Xirsi wuxuu ahaa madaxii sirdoonka al-shabaab, hadda waa xubin sare oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka. sidaas si la mid ah saraakiil ka tirsanaa al-shabaab ayaa ku dhex milmay ciidamada dowladda.